السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذيلكين بمالبو دنيا aad ka joogtaan isku soo noqod wanaagsan oo wali wixii salawaanigo ah Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil channelka anaga daawanaysan waa Jaabir Jamil Official. Marka la muuqaal kale oo waliba aad u xiiso badan fadlan waxa idinka codsanayaa haddii markii kugu horeysay channelka ay tahay inaad subscribe noo saarto haddaad hore noola joogtin waad ku mahadsantahay hela jirkaaga aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa. Waxaan ka codsanaynaa like iyo comment iyo share inta muhiim ay inoo tahay. Waa tahay muuqaalkana ayaan u gudagaleynaa muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay hadduu aabeed insha Allah taala waxaan kaga hadli doonaa muuqaalkii hore ama barnaamijkii hore aan kaga hadlaynay nolosha Malaysia qaybtiisii labaad ama wajigiisii labaad. Qaybtii koowaad dad badan ayaan fahmin waxaan ciwaan ugu soo dhigay su'aalna ka soo dhigay waxa looga shaqeeyaa $1500 Malaysia. taasi waxay ahayd su'aal haddii aad muuqaalka marka gudaha aad u gashay bilow ilaa iyo dhamaad aad daawatay su'aashaas jawaabteeda meesha ayaad ka dhaxli kartaa. Ma ahan in aan ka waday $1500 ayaa Malaysia looga shaqeeyaa. taas ujeedkayga muusan ahayn ee waxa ujeedkaygu uu ahaa in ay jiraan dad dhaha Malaysia ay lacagta looga shaqeeyaa. lacagta Malaysia loogama shaqeeyo xaqiiqda markii laga hadlana dadka Malaysia ku nool lacagtaasi lacag u dhow dad ku shaqeeyo ma joogaan meeshan. waa tahay qaybta labaad ama wajiga labaad haddii aan u guda galo maanta waxaan rabaa hadduu Ilaahay yiraahdo wajiga labaad waxaan uga hadli doonaa Malaysia ayaa timid oo aad soo gashay saddexdii qaab ee aan hore kuugu soo sheegay qaab kamid ah ayaad ku timid oo aad ku soo gashay dalka. waa tahay qaabka koowaad haddaad ku soo gashay ardaynimo waxaad tahay arday sidee noloshaada ama maciishadaada aad u ka fargareyn kartaa. taas waxaa runtii inta badan ogaan kara dadka meeshan ardayda ku ah ama ay degan. waxaan ka ogahay aniga kaliya ku sheegaya inta aanan ka ogeyn ma ka ogi. waxaan ka ogahay marka haddii ay tahay arday aad tahay ama ardaynimo aad ku soo gashay waxaa laga yaabaa jaamacadda aad soo dalbatay ee ku aqbashay ee aad dhiganayso inay leedahay hosteelo ama meel la dego ama deegaan inay leedahay. jaamacadda markaas inaad degtid dhexdeeda oo aad maxaa la yiraahdaa ka mid noqotid dad jaamacadda deegaanka dhexdeeda aad degan. dadka qaarna waxay sameeyaan jaamacadda dhexdeeda ma degaan way ka soo baxaan oo waxay yimaadaan banaanka si ay maxaa la yiraahdaa banaanka u degaan oo dadka banaanka degan ee la qaybsadaan nolosha ay ku nool yihiin. sida haddii banaanka qofku uu soo baxo noloshiisa markaas wax waan ka sheegi karaa laakiin jaamacadda gudaheeda in cuntada jaamacadda laga sameeyo free ay tahay in sida banaanka cuntada maqaayad ugu gadanayo in guryaha ay degan yihiin ay yihiin guryo kushiina leh ay wax ku samaysan karaan cunto inay tahay adeeg meel adeeg inay leeyihiin. waxyaabahaas waxaan ka ogahay ma jirto oo faahfaahin dheeraada hadda kama haayo. qof arday aan ka wareystay arrintaas maanta ka hor ma jirin. marka haddii banaanku qofku uu joogo laakiin oo dadka banaanka ula nool yahay ardayna uu yahay markaasi nolosha caadiga ah dadka annaga kale aan ku noolnahay ay ku noolaanaya biilka dadkan caadiga ku baxo ayaan ku baxay. waa tahay haddii aad tahay shakhsi kaligiis ah oo ardaynimo ku soo galay banaankana degay waxaa kugu bixi doona marka ugu horeyso guriga aad degaysid ayay ku xiran tahay. guryaha ama xaafadaha la dego xaafad walba xaafad way ka qaalisan tahay xaafad walbana xaafad kale way ka istiraatiijiyadsan tahay. marka haddii aad degto marka xaafadaha istiraatiijiga ah ama xaafadaha cusub ee yacni sanadihii ugu dambeeyay la dhisay sida 2018kii 2019kii ilaa 2020kii kuwa waxaa jira markaasi laga qaaday gacanta. haddii xaafadahaas aad degto waxaad ku degi doontaa haddaad shakhsi tahay qolkii aad ku degi doontaa waxa waaye lacag dhan $125 ilaa $120 ilaa iyo $125. haddii aad degto marka xaafadaha qadiimiga ah ama xaafadaha ay maxaa la yiraahdaa badana Soomaaliduna ay u badan yihiin ay deegaan ahaan u degan yihiin qolkii waxaad ku degi kartaa haddii aad rabto qolalka shakhsiga deegaan ama qolka maxaa la single-ka loo yaqaano haddii aad degayso lacag waxa kugu bixaysa iyadana $100 ah. waxa kaliya farqiga u dhaxeeya waa $20 ilaa $25 oo farqi yar ah u dhaxeeya xaafadaha aad kala degi doonto. nolosha marka taasi waa noloshii maciishada waa noloshii kirada guriga aad kireysanayd. maciishadii ama cuntadii hadda usoo gudbo cuntada laba ay
cunada xaggeeda haddaan usoo gudbo, cunada waxa waaye cunada xaggeeda haddaan usoo gudbo, cunada ama waa ina adiga karsanayso oo chef aad tahay khatar ah oo kasoo kala tuuranayo wixiisa, ama inaad chef aadan ahayn ama cuno karin aadan aqoonin oo weligaaba aad cuntada lagu soo kariyo unaad cuni jirtay haddii aad tahay, maqaayadaada iska celinaysaa ama qof wax kuu soo karinayaad cunaysaa. saasay noqonaysaa. labadaas mid ayaad maxaa la yiraahdaa aad galaysaa, labadaas marxaladood midkood. haddii aad tahay laakiin qof asaga soo gata cuntadiisa samaysta karsada, haddii aad tahay saving badan aad sameynaysaa. markii maqaayad aad ka cunteynaysid waxaa laga yaabaa inay kugu baxdo lacag adiga ilaa iyo kaliga maadaama aad tahay lacag $150 ilaa iyo $200 lacag celcelis ah inay kugu baxdo ayaa macquula. waayo markaad maqaayad ka cunteynaysid raashinka maanta cunto beri ma ku laaban kartid. cashada waxaad cunto maxaa la yiraahdaa, qadada waxaad cunto casho ma cuni kartid, waxaad casho cunto maxaa la quraac kama dhigan kartid. yacni farqigaas ayaa u dhaxeeya. waad dareemi kartaa meel walba adduunkan waa isku mid. markii guri aad ka cunteynayso iyo markaad maqaayad ka cunteynayso farqi weyn ayaa u dhaxeynaya mar walba. haddii marka cuntadaada adiga aad hagaajisanayso oo chef aad tahay saan hore kuugu sheegay, cuntadaas lacagta kugu bixi doonto lacag macquul hooyaday noqonaysaa. waa tahay dad waxaa jira soo gala caafimaad ku soo gala ama wax kale ku soo gala ama qof kale caawinayay. qof waxaa laga yaabaa waalid oo kale inaad soo kaxaysay oo halkan aad timid oo waalidkii adigaba halkan iska degteen, fiisihii bilkaa idinka dhacay, kadib aad rabtay inaad noloshii Malaysia aad sii degnaato ood baaqi kusii ahaato. taas markay noqoto shuruucdii aad ku joogi lahayd wadanka iyo wadanka maxaa la yiraahdaa maxaad kusii joogi oo ku nagaan kartaa, sidee ugu nagaan kartaa u joogi kartaa, sidee uga mid noqon kartaa hay-adaha qaxootiga ee wadankan sharciyeeda ku heli kartaa. iyadana taasna waa su-aal kale intaan gaarin, laakiin waxaan dhamaystirayaa marka hore ka baxayaa nolosha sida ay tahay. nolosha waxay tahay waa sidaan kuu sheegay, haddii aad asmaareynayso cunadaada iyo adiga aad karsanayso wax walba aad samaysanayso lacag yara kuugu baxaysa. haddii aad dhehayso maqaayad baan ka cunteynaya lacag badan baa kuugu baxaysa. guryaha sida loo kala degayo deegaankana waa sidaan kuu sheegay. guryaha hadday yihiin qadiimi ah ama guryihii hore loo degnaa haddii ay yihiin waxaa kugu bixi doonta lacag dhan $100 ilaa iyo wax ka yar. qaarkood waxaa laga yaabaa $75 inay yihiin, laakiin qolalka $75 markii la yiraahdo qolal aad iyo aad u yar waaye. the same time waxaa jira haddaad tahay wiil oo aad jeceshahay inaad dad qol la degto ama qol weligaa dad aad la degnaan jirtay, dadka isku mid maaha. dadaa waxaa jira in lala degin ayay jecel yihiin, dadna waxay jecel yihiin dad la degaan iyo wax la qaybsadaan. dadna duruuftaa ku kalifto oo ma awoodaan qol kali intay degaan lacagtiisa iska bixiyaan. soo marka waxaa qasab ku ah inay dad la degaan. haddii aad dad la degtid waxaa laga yaabaa $50 inay kugu soo aado kirada guriga, qofka kalena $50 uu bixiyo, saas $100 aa ku wada dhiibtaan. haddii kaliga aad degtid laakiin $100 oo go-an kaliga ayaa dhiibaya. marka haddii aad jeceshahay inaad dad la degto ama lagula dego ay normal kula tahay, waxaa kuu fiican oo kuu kheyroon in aad dad la degto oo qol share aad wada degtaan, qofkaasna aad isku biirsataan nolosha si oo maxaa la yiraahdaa macquula ayay markaas kuu noqonaysaa. cuntada kuu soo hartay, cuntada haddii labadiina aad wada degteen midkiin uu cunto karinta ku fiican yahay, taasna waa iidan arrin aad u fiican waaye. adna adeega u keenaysaa, qofkan kalena wuu karinayaa. cunadan halkaas iyadana lagu midoobaya. meeshii kaaga bixi lahayd taa iyadana $100 ama $200 waxaa laga yaabaa inay kaaga baxdo 8. marka haddii sharinka nolosha sharinka aad ku fiican tahay, dhaqaale badan waxaa la yiraahdaa waa save garanaysaa reerka dhaqaale badan reerka u save garanaysaa. haddii dhanka sharinka ama aadan ku fiicneen ama wax inaad share garaysa aadan rabinna, waxaa kugu bixi doona kaliya bishii $300 ilaa $350 oo ay kugu bixaysa kaliya kiradaada iyo cunadaada iyo weliba deegaanka aad degi lahayd maxaa la yiraahdaa qaabka u noqon doono. marka su-aal ayaa wiil soo weydiiyey. su-aashaas wiilku soo weydiiyey waa sidee looga mid noqon karaa ama qaxootiga wadanka waa sidee xaaladiisa. insha allahu tacaala su-aasha wiilkan uu soo weydiiyeyna marbaa iyadana si waafi ah uga soo jawaabi doonaa insha allahu tacaala. tani muuqaalkan muuqaal ku xigay intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.